kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warka habeen ee Wardheera TV qodobada caawa aad ku daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahin ka soo baxaya qarax ay ku dhinteen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda kuna dhaawacmeen oo ka dhacay Muqdisho xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay magaalada caasimadda wasiir Maareeye oo kala garowaayay cidda ku geeriyootay qaraxi ka dhacay Muqdisho dawladda federaalka ee Soomaaliya oo go'aan basiida ka soo saartay go'aamadii ugu dambeeyay Kenya ay ka gaartay dawladda Soomaaliya odayaasha dhaqanka Jubbaland oo u digay guddiga doorashooyinka kana digay inay la saftaan Axmed Madoobe beelo walaalo ah oo ku dagaalamay gobolka Mudug iyo faahfaahin laga helay qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ra'iisul wasaaraha UK oo caraq kala kulantay heshiiska cusub ee ka bixitaanka midowga Yurub iyo qaramada midoobay oo xuutiyiinta ka codsaday inaysan dhicin raashinka gargaarka fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe dheh YouTube channelkan Wardheera TV si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamka intiisa kale hagaag markaana ku soo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa qarax xoogan oo ka dhacay bar control oo ku taala ilinka hore ee laga galay godka Jilco ama ex parliament degmada Boondheere ee gobolka Banaadir goobtu qaraxa ka dhacay oo ahayd bar control oo lagu hubiyay baabuurta galaysa madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa baaritaan feel ah ugu jiray ilaa 6 gaari ah kuwaas oo uu ku jiray gaari Cabdibilah oo ay wateen ciidamada ka tirsan militariga xoogga dalka ciidamadaas ayaa la sheegay inay la socdeen sargaal ka tirsan xoogga dalka oo lagu magacaabi jiray Faay Ali Raage isla markaana ay dhamaantood qaraxaasi ku geeriyoodeen wariyaal goobta gaari ayaa soo sheegay in goobo ganacsi oo ka agdhow halka qaraxu ka dhacay kan barakacyaal iyo dhalinyaro markaasi ku ciyaaraya diblad taalada dalajidka Daason ay sidoo kale waxyaalo ka soo gaartay qaraxaasi saraakiisha gurmadka degdega ayaa sheegay inay arkeen 10 qof oo dhaawacya waxaana kamid ah dadka dhaawacyadaasi ay soo gaareen xildhibaan Xasan Shabeel iyo xildhibaan Zainab kuwaasi oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanadan ayaa ku soo jeeday xarunta golaha shacabka hase yeeshee marka ay marayaan isla markaana ay qayb ka ahaayeen feelka inay u soo gudbaan dhanka madaxtooyada ayaa gaari nuuciisa lagu sheegay inuu ahaa saarif sida dadka deegaanka ay sheegeen halkaasi uu ku qarxay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho Maareeye ayaa sheegay in qaraxaasi ay la bartilmaameedsadeen al-shabaab dad barakacyaal ah oo deganaa wasaaradii hore ee caafimaadka Soomaaliya sidoo kale dadka tacsiyeeyay waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre wasiir Maareeye ayaa ugu horeen uga tacsiyeeyay dadkii masaakiinta ahaa isla markaana barakacyaasha ahaa in alle uu ka sawaabiyo ajarna uu siiyo maadaama gacan ka xaq daran ay ku dishay Muqdisho ayaan uga bareynaa in jannadiisa uu geeyo ayuu yiri wasiir Maareeye oo war kooban soo saaray wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay weerarada al-shabaab ee shacabka Soomaan ay ku bartilmaameedsanayaan sida uu hadalka u dhigay waxaana hoos ka xariiqay in dawladda Soomaaliya ay samarnaba ka daali doon badbaadinta shacabka Soomaaliyeed dhigooda ugu dambeyn wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay si laba jibaaraan gacansiinta ciidamada qalabka sida ee dagaalka adag kula jira al-shabaab waxaana rajo wanaagsan uu ka muujiyay in dhawaan dalka laga saari doono al-shabaab markan warar ku saabsan Kenya oo dawladda federaalka ee Soomaaliya si basiida ay ugu jawaabtay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa walaac ka muujisay go'aankii dawladda Kenya ay ku xidhay dalku galka fiisaha isla markaasina dib ugu soo celisay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya magaalada Muqdisho qoraalka ay soo saartay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa ahaa sida tan wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo qadarinaysa wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Kenya waxay aad uga walaacsan tahay go'aankii ay dhawaan qaadatay dawladda Kenya ee lagu xadiday dalku galka xubnaha xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya dawladda Soomaaliya waxay si gaar ah uga walaacsan tahay in xubnaha ka tirsan dawladda Soomaaliya oo dhawaan u safray Nairobi kuwaasi oo ay ku jiraan wasiiro iyo xildhibaano ay xanibaad ku sameeyaan saraakiil ka tirsan hay'adda socdaalka Kenya baasaboorradoodii laga qaaday kadibna dib loogu soo celishay magaalada Muqdisho
sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay muujinaysaa walaac ay ka qabto in dib loo soo celiyo baaritaankii dheeriga ah ee lagu sameyn jiray Soomaalida safarka ku aadaya Nairobi iyagoo qasab looga dhigay inay maraan Wajeer oo hakad ay ku galaan si baaritaano amni loogu sameeyo. Arrintan waa mid ka hor imaanaysa heshiiskii ay labada dowladood ku saxiixdeen magaalada Nairobi kaas oo dhigay in duulimaadyada tooska Muqdisho iyo Nairobi ay ahaadaan. Talaabooyinkaasi waxay carqalad ku yihiin xiriirka walaaltinimo ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Sidaas darteed dowladda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dowladda Kenya inay xeeriso carqaladaha ay keeni karto talaabooyinkaas oo ay ilaaliso xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeya labada dal isla markaasina tixgeliso dabciga diblomaasiyadeed iyo ixtiraamka labada wadan ay kala leeyihiin. dowladda Soomaaliya waxa dhankeeda ka go'an inay ilaaliso xiriirka saaxiibtinimo ee ay la leedahay dowladda Kenya. waxaynu sii wadi doonaa soo dhaweynta muwaadiniinta iyo saraakiisha dowladda Kenya ee Soomaaliya imaanaya. wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga dowladda Soomaaliya iyadoo fursad ka faa'iideysanaysa waxay tixgelinaysaa inay qadarin u sameyn doonto wasaaradda arrimaha dibadda Kenya isla markaana balanqaadyadii hore Soomaaliya ay u gashay ay ka soo bixi doonto. guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa kulan waxa ay la qaateen salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka Jubbaland waxaana kulankani looga hadlay habka loo maareynayo hanaanka xulista baarlamaanka Jubbaland. guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa sheegay inay bilaabi doonaan soo xareynta odayaasha dhaqanka Jubbaland si ay u soo xulaan xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland. dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa laga keeni doonaa odayaal dhaqameed matalo waxaana la keeni doonaa magaalada Kismaayo iyagoo la siin doono tababar ku aadan xalinta khilaafka, isku tanaasulka, qancinta beelaha iyo sidoo kale hanaanka soo xulista mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland kuwaasi oo dooran doona madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. guddiga oo wada tashi la sameeyay odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa isku raacay in odayaal dhaqameed walba uu keeno 300 oo qof oo beeshiisa ah halkii uu ka keeni lahaa hal qof kadibna looga xusho midkii noqon lahaa xildhibaanka. odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa sidoo kale waxa guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka ay ku dhaliileen inay wadaan hab ay ku doonayaan in mar kale ay dib ugu soo ceshaan Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland oo walaac daran xilligan wajahaya. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sida qorshe u ahaa maanta waxa lagu waday in magaalada Muqdisho ay kulan ku yeeshaan hase ahaatee waa uu baaqday kulankaasi waxaana uu baaqday kooram la'aan. kulanka maanta baaqday ayaa ahaa kulankii 17aad ee kooram la'aan kaga baaqdo xildhibaanada golaha shacabka waxaana xarunta golaha shacabka soo xaadiray 98 mudane oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. ajendaha kulanka maanta ka baaqday golaha shacabka wuxuu ahaa inay aqrinta koowaad ku marsiyaan xarunta golaha shacabka sharciga iibka oo ay wax ka bedel ku sameeyso wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. hase yeeshee qaraxa dhacay awgiis ayaa qaar ka mid ah xildhibaanadu dhaawac ku soo gaaray iyadoona isku socodkii magaalada uu xoogaa hakad galay. xildhibaanada ayaa fasax galay maadaama la soo gaaray ama lagu dhow yahay 10kii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana la balamiyay bacdul iid dib loo furi doono xildhibaanada golaha shacabka kulmadooda. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh YouTube channelkan Wardheera TV si aan kuugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. waayahay markana akhbaaraadka dibadda. ra'iisul wasaaraha UK Theresa May ayaa heshiis cusub oo ku saabsan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub waxa ay geynaysaa baarlamaanka xilli uu jiro khilaaf ka dhex taagan qaabka loo horgeynayo baarlamaanka. ra'iisul wasaaruhu waxa ay khudbad u jeedin doontaa baarlamaanka waxayna ka hadli doontaa isbeddelka ay ku sameysay heshiiska looga baxayo midowga Yurub laakiin xildhibaanada xisbiga shaqaalaha ayaa aaminsan in wax yar laga bedelo heshiiska la keeni doono. tiro dhowr jeer hore ayaa Marwe May loo diiday heshiiskan in loo saxiixo in midowga Yurub uu dalkeeda uga baxo balse waxa haddana laga maarmaan ah inay xal u hesho balantii ugu dambeeyay oo bishii Oktoobar ee sanadkan ay baarlamaanka ka hor sheegtay. qaramada midoobay ayaa sheegtay in la weeciyo raashinkii gargaarka ayna leexsadeen kooxda Xuutiyiinta Yemen isla markaasina aysan wax wada shaqeyn ah la yeelan karin saraakiisha Xuutiyiinta maadaama raashinkii gargaarka ay leexsadeen haatan loo digay halkaas oo malaayiin qof la rumaysan yahay inay macluul daran ku haysato. David Beasley oo ah madaxa hay'adda WFP ayaa BBC-da u sheegay
in hay-adda ay dadaal ugu jirto bixinta sidii ay gargaar ku gaarsiin lahaayeen dadka ku tabaalaysan gudaha waddankaasi. waxaa jira warar sheegay in xubno ka tirsan xuutiyiinta ay raashin leexsadeen, taasina waxa ay keeni kartaa in raashinka gargaarka ah uu joogsado maadaama uusan gaarin dadkii loogu talagalay sida ay ka digtay hay-adda gargaarka ee qaramada midoobay. 12 milyan oo dadka reer Yemen ah ayaa ku jira xaalad liidato, qaarkoodna waxaa haysato macluul. warkii habeen ee Wardheera TV waa naga intaa daawadayaal, nabadgeliyo, Ramadaanul Kariim.